ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabaa inaan la wadaagno sida ay baraha bulshada ku arkeen shalay oo ay taariikhdu ahayd 16 bishii koowaad 19 abaara 5 saac iyo bar subaxnimo ayaa askari lagu magacaabo Cabdi Cabdulla Xasan waxa uu joojiyay gaari nin shacabihii uu watay wuxuu weydiiyay sharcigi laysinkii iyo buuggii wuxuu helay buuggii markii uu weydiiyay buuggii ayuu helay wuxuu yiri laysinkii ma hayo mar la markii uu yiri laysinkii ma hayo mar la markii uu yiri wuxuu weydiistay lacag laaluusha lacagtii laaluushka ahayd waa uu qaatay taliyaha ciidanka booliisku wax kasta magaalada xamar ka dhaca daqiiqado gudahood ayuu ogaadaa mar la markii uu ogaaday wuxuu amar ku bixiyay in askarigaas la qabto lana xiro waxaan rabaa marka inaan idin la wadaago askarigaasi wuxuu ku xiran yahay qaybta dambiyada CID ayuu ku xiran yahay waana la gudbin doonaa sida taliyaha ciidanku amar ku bixiyay waxa loo gudbin doonaa maxkamad horeyna waxa uu xiraa 32 isugu jirta saraakiil xigeen iyo dablay oo dambiye kala nooc ah hore u galay oo uu kamid yahay taliyii saldhiga Wardhiigley uu kamid ahaa ayaa hore u xiraa xabsiga dhexe ayay ku xiraayeen asaguna meeshaas waa eedeysane wuxuu uga daba tagi doonaa kulay halkaas wuxuu uu sharciga ka helo ayuuna leeyahay cid kasta ciidanka booliisku wuxuu ku shaqeeyaa sharcigaas ayuu ku shaqeeyaa ummaddu u shaqeeyaa qof kasta oo sharcigaas ku xadgudbana wadada ayuu marayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan la wadaago oo ka codsanno wax allaale iyo wixii ay arkaan oo ayaga kullid ah oo sharciga kullid ah in ay sida ugu dhaqsiyaha badan noola soo xiriiraan ula soo xiriiraan saraakiisha ciidanka taliyaha cid kasta ay la soo xiriiraan tilaabada ku habboon ayaa laga qaadayaa waa mahadsantiin